abaarihii 11kii barqanimo subaxnimo isniin oo ay taariikhdu ahayd 9kii bishii 7aad 2012 ayaan ka baxay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya anigoo ku sii jeeday garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo waxaan ku wajahnaa safarkayga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo ujeedada safarkaygu way ii qorshaysnayd waxaan rabay inaan soo arko waxa la taaban karo ay xukuumadda ku meel gaarka ah qabatay gaar ahaana go'aankaygu waxa uu ahaa inaan si gaar ah u abaaro golaha wasiirada ee uu hogaamiyo Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo xubnaha golihiisa wasiirada si aan u ogaado 12kii bilood ee ay xafiiska joogeen waxa la taaban karo ay u qabteen dalka isla markaana taariikhda u gali doona guul iyo gobonimo waxa ay qabteen 12kii bilood ee ay xafiiska joogeen wax yar kadib joogitaankaygii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo ayaa waxa ii suuragalay inaan la kulmo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali anigoona kala sheekaystay waxyaabaha u qabsoomay muddadii 12 bilood ahayd ee ay xafiiska joogeen waxaan ugu horeyn weydiiyay bal sida xaaladda dalka ay ahayd markii uu imaanayay bismillaahir rahmaanir rahiim xaqiiqadii markii aan meesha imid aan qabtay xilka ra'iisul wasaarenimada dalku wuxuu ku jiray xaalad aad u adag marka laga eego dhiga ammaanka oo kale in badan caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka waxa gacanta ku hayay kooxda Al-Shabaab wadanka waxa ka jirtay abaar ba'an oo ah tii ugu xumeed 60kii sano ee la soo dhaafay siyaasadda arrimaha gudaha iyo hay'adaha dawladda maanay wanaagsanayn xiriirka TFG la lahayd maamuladii iyo gobolada dalka sidoo kale ma uusan fiicnayn mana uusan qeexnayn si cad oo muuqata dhammaan arrimahaasi ayaan diiradda saarnay waxaana ku talagalay in Soomaaliya dhibta ay ku jirto laga saaro colaadihii iyo xasaradihii 20 sano la soo dhaafay ragaadiyay dalka in wax laga qabto waxa hubaala bishii Agoosto oo ahayd bishii labaad ee jiritaanka xukuumadda uu hogaamiyo Dr. Cabdiweli Maxamed Cali waxa bilowday xoreyntii iyo xasilintii gobolada dalka iyo caasimadda dalka hooyo iyadoona ay ahayd 6dii bishii Agoosto waqtigii ay Al-Shabaab isaga baxeen magaalada Muqdisho haddaba ra'iisul wasaaraha waxaan weydiiyay waxa uu ku micnayn karo horumarada dhinaca ammaanka ay xukuumaddiisu gaartay muddadii ay jirtay markii aan xukuumadaydu ay timid magaalada Muqdisho boqolkiiba 50 in ka badan asxaanu kala boqolkiiba 60 waxay gacanta ugu jirtay shabaab ciidamadan waxay joogeen jidka wadnaha wada la socotaan bishii August 6deedii waxaan ku guuleysanay xashaab inaan ka saarno magaalada Muqdisho ka bacdina aanu u soo jeesano sidoo kale aan ka xoreyno gobolada dalka ee kale waxaanu bishii December ee sanadka la soo dhaafay xoreynay Beledweyne ka bacdi waxa ku xigay Bay Bakool gobolada Bay Bakool gobolka Gado dhamaantiis marka laga reebo laba magaalo Jubbooyinka walina waa ay socotaa xoreyntii dadka laga xoreeyay Al-Shabaab wayna socotaa xasilintii soo mararka qaar kood waxa weey waa inaad xoreyso dalka laakiin waxa ku muhiimsan xoreynta waa xasilinta dalka in la xasiliyo maamul loo sameeyo gargaarka bini'aadamnimada la gaarsiiyo iyo sidoo kale tasiilaadkii iyo imkaaniyaadkii ay u baahnaayeen bulshada Soomaaliyeed ku nool goboladaas bishii June sanadkii 2011 oo ahayd markii xilka ra'iisul wasaarenimo loo soo magacaabay Cabdiweli Maxamed Cali oo ahaa dhaktar wax ka dhigi jiray jaamacadda Niagara University oo ku taala cariga Mareykanka waxa hubaala ama ruux walba oo Soomaaliya uu qiraya in xaalad adag ay dalka ka jirtay marka la fiiriyo xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha federaaliga ee dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya gobolada dalka iyo dawladda dhexe haddaba qiimo intee leeg ay xukuumaddiisu ku bixisay arrintaasi
markan xukuumadooda meesha ay timid runtii wax xiriir oo ka dhaxeeya gobolada iyo xukuumadda ma aysan jirinin anse marka qaarkood waxa ka dhaxeeyay dhibaato labada ba ka dhaxaysay oo waxa la isaga jawaabay idaacadaha waxa la qabanayay shirar kala goongoonay ayaa la qabsanayay markaan imid waxaan ogaaday waqtiga yar aan haysano challengeska iyo dhibaatooyinka wadanka yaala hawshan loo taala baxadda ay leedahay markaan eegay waxaan ogaaday sida kaliya oo laga bixi karo intaas inay tahay midnimo iyo wadajir iyo Soomaalinimo taas ayaa keentay marka inaan soo dhaweyno gobolada xiriir fiican la yeelano waa tala socotaano markaas aniga iyo madaxweynaha iyo madax kale oo dhanba waxaan ku tagnay boqoshooyin gobollo badan oo Soomaaliya ka mid tahay Puntland Galmudug Hiiraan Baybakol iyo Gado marka in la soo keeno bulshada Soomaaliyeed ay mid noqoto hal ujeedan ay yeelato hal itijaar ay yeelato si loo guuleysto taas sheegtay marka taa waxa ugu dambeeyay waxa weeye inaan xiriir la sameeyno xukuumadda Soomaaliland oo aanu ka tashano sidii aan isugu imaan lahayn sidii afgarad iyo wadajir aan u wajihi lahayn caqabadaha jira 12 sano ee ay dalka Soomaaliya ka soo arriminayeen xukuumadaha ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo laga soo bilaabo dawladii lagu soo dhisay degmada Carta ee dalka Djibouti waxa inta badan dawladaha ku meel gaarka ah halakaynayay ama saameyn xoogan ku yeelanayay khilaaf soo kala dhaxgalay hoggaanka ugu sareeya ee xukuumadahaasi gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba Dr. Cabdiwali waxa 12 bilood ee uu xafiiska joogay isaga iyo gulihiisa wasiiradu ay ka badbaadeen in wax khilaaf ah ay soo kala dhaxgalaan hay'adaha federaaliga ee dawladda ku meel gaarka ah haddaba ka xukuumad ahaan arintaasi sidee u wajaheen dabcan waa laga maarmaan in hadii sidaan ku sheegay waqti yar aan haysanay iyo hawsha tirada badan in hortaalay iyo caqabadaha soo wajahay markaan meesha imid ama noqoto dhibta dhaqaale dhibta abaarihii wadanka saameeyay in aanu waxa kaliya aan kaga bixi karnaa ay tahay midnimo iyo wadajir marka xukuumad meel u socoto hay'adaha dastuurka oo meel u wada jeeda iyo Soomaali meel u wada socota ama ha noqoto dowladda dhexe ama ha noqoto dowlad goboleedyada in meel lagu soo wada jeesto arrimahan si loo يعني أي أفرشه يعني هوشو حلو باهي ودجر وحلو باهي مدنمو وحلو باهي صومالي نمو سيدا كلي أولو وجهي كرن تاسوي لكن هدية فرار وكل حجروا حكومة أما حكومتها الدولة حكومة هيدا الدستور اللي حضوضا سوى سعن قبل دي يو حكومة دي تدبا إيمانيسا هوشي نلاقي بدأنا إنه قبلنا خلك سننا وما نديت كأنها سنينا دبوين بس وقال لهي مركز يوكلفتي إن فنتي أنا ورا شيء حرر كدحية هذا دستور الدولة إيوه حكومة ده الدولة ده إيوه دولة الجوالية إيوه مش لاقي ذكره. طبعا markii ay golahan wasiirada ku soo beereen saaxada siyaasadda dalka waxa dhacday in dalka gaar ahaan gobolada koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya ay ku dhufteen abaaro xoogan haddaba qaab caynkee ayay golaha wasiirada uga jawaabeen arintaasi una abuureen iskaashi caalami oo dhex mara Soomaaliya iyo beesha caalamka si loo gargaaro dadka ay abaaruhu aafeeyeen runtii waxyaabaha aan ku faani karno waxa kamid ah markaan meesha nimid waxaan wadanka la soo dirsay abaar aad u xun abaartii waxma 60 sano la soo dhaafay dadku waxay ku dhamaadeen goboladan ay haystaan shabaab maadaama ay u diideen inay gaarto macaawanadii waxayna si tarab ah u imaanayeen oo isdaba jooga caasimada u soo qulqulayeen iyagoo jidka ku soo dhibaatoonaya iyagoo ilmahoodii ay ku soo dhinteen qaarkood jidka soo socdeen waxay aad marxalad aad u adag qofkii markaas joogay xamar juun sanad la soo dhaafay ama July ay ardaas yani dareemi kara oo garan karaan isla markiiba waxaan ogaan ku gaaray dadka la badbaadiyo xorooyin loo sameeyo waxaan u sameeynay xeradii rajo xeradii badbaado oo la socotaan oo hadda noqday kaamu waaweyn oo ay dad badan ku nool yihiin dadka in la badbaadiyo taageero bini'aadan loo fidiyo isla markaasna beesha caalamka loo yani lagu dadaalo in yani loo geeyo dhawaaq beesha caalamka oo si ay arintaasi maadaama ay aad u culus tahay in naga qayb qaataan ilaahay fadligiisa waa ku guuleysanay waliba anagoo waqtigaas yada waxaan ugu soo aaday iyadoo badxiran jiro dhaqaale aad u xun yahay $500,000 u horeysay xukuumadda ayaa ku deeqday si ay u badbaadiso dalkan dhibaatooday
باقي international community ujeedinay beesha caalamkuna si fiican ayaa looga soo jawaabay markii loo soo jawaabayna waxaan ku guulaysanay marka runtii fursad bay ahayd u soo jeedisay beesha caalamka indhaha Soomaaliya taas way sababta keentay in wadamo badani ay si dhab ah Soomaaliya xaaladeeda u fahmaan u ogaadaan u darsaan taas way keentay in مثلا madaxweynaha wasaaraha dalka Turkiga uu yimaado admaantan u jeedaan isbeddelka dhabta ah مثلا Turkiga ka sameeyay dalka Soomaaliya Soomaaliya waxay noqotay hadda maadaama nabad magaca caasimadan ay nabad noqotay in markaasi ay fursad ay timaado ah in dad badan oo madaxii wadanka ay yimaadaan ilaa laga soo bilaabo Ban Ki-moon ra'iisul wasaarayaal madaxweynayaal wasiirro tiro badani maanta ku soo qoolayaan dalka taas ayaa keentay marka يعني challenge-gii abaaraha iyo qaabkan ugu jawaabnay iyo sidii aanu u wajahnay ayaa keentay marka beesha caalamkuna ay tiraado oo Soomaaliya isbedel baa ka socda dhan waxa ka socda xoreyntii xasilintii iyo dabdhiskii dhanka kalena dee in dadkan la soo gaaro oo gargaar bini'aadamada la gaarsiiyo oo dhibta ay ku jiraan lala qaybsado taas ayaa keentay marka inaanu isku xiran anaga beesha bishii September 2 bilood kadib markii ay xukuumadda timid waxaa la soo bandhigay khariidada road map-ka oo dad badan oo Soomaaliya ay ugu magac dareen tubta nabadda iyo horumarka taasi oo ahayd mid lagu saleeyay qaabka Soomaaliya ay uga bixi lahayd ku meel gaarka haddaba daawade maxaad u malaynaysaa qiimo ahaan inuu ugu fadhiyay road map-ka ummadda Soomaaliyeed muxuu ka koobnaa طبعا waxyaabaha aan rabno ku xasuusto xukuumadayda oo legacy u noqon doona waxa kamid ah road map-ku soo socotaan wuxuu ka koobnaa 4 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa in dalka la xoreeyo shabaab laga saaro la xasidiyo maamul loo sameeyo qodobka labaadna wuxuu ahaa in dawladnimo wanaag la muujiyo lala dagaalamo musuqmaasuqa lala dagaalamo in hay'adaha dawliga oo maadaama haykalkii dawladnimada uu dhumay in يعني كابياشي dhaqaalaha iyo hay'adihii dawladda dib loo soo nooleeyo tasaddexaad oo iyana muhiimka ahayd waxay ahayd in la isku xirmo la sameeyo dib u heshiisiin waxaan sheegnay marka goboladii dalka iyo xukuumadda dhexana ay soo isgaaraan si markaasi Soomaalidu ay u noqoto yani dad hal ujeedda leh diyaarna u ah inay ka baxaan dhibaatadii haysatay 20 sano la soo dhaafay una gudbaan marxalad kale oo ah jawi nabadgelyo iyo Soomaalinimo iyo wada jir in laga shaqeeyo talaftigeeda iyo ugu dambeyntii maadaama aan dawladeedu ahayd dawlad ku meel gaar ah ku meel gaarnimadu ay ragaadisay 12 sano ee la soo dhaafay in laga baxo wadanka loo sameeyo dastuur isbedel dhabahna oo dhaco bisha August ee 2012 kaasoo muujinaya inaan ku gudbayno marxaladii colaadda iyo dhibta oo gudbayno dawladnimo taam ah nabadgelyo iyo horumar